kooxda kubadda cagta Elman ayaa soo tiigsatay aframaadka koobka General Daoud ololaha 2017-2018 waan ku faraxsanahay wallahi kooxda inaan horumar gaarsiiyo oo maanta aan semifinal ah joogno hadda waxaan rajaynayaa insha Allah inaan final gaarno aan koobka qaadno insha Allah kooxaha kubadda cagta Horseed iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Elman ayaa ciyaar xiiso badan ku yeeshay garoonka Banaadir ee degmada Cabdulcaziz kulankan waxa uu soo daawashay taageerayaasha labada dhinac waxaana qaybta hore lagu kala maray hal gool eber oo ay ka horkacayaan wiilasha uu hogaamiyay macallin Cabdijoon ee Elman waxaana goolka u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Cabdinaasir Maxamed جيم وين أدق يعني دلني ما شاء الله وحي إلى نص غريان قادر مانت عيار في عن وصوم بندقني إن كستو بوش حق المن قراعدي وحاول بن حق إلهي كفرنايين ونون وجد داود دلني وبت في عن يو غير باصو بندقني هذا يجوش حق المن قراعدي تب ملاتن وفرح سنة تاجرها وست مرة بعان وباخا مرة بين قرب كم جوجان إنه ما هذا نتايران ما نديت كوب كان كير إيجا نيجوان ما هنو ريال كاسوس عضو markii la isku soo laabtay qaybtii labaad ee kulanka labada dhinac waxay sameeyeen fursado badan oo cajiib ah gool loo filan karay laakiin ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay hal gool eber oo ay sidaas ku soo tiigsatay kama dambaysta ciyaaraha koobka General Daoud kooxda lagu yiraahdo sajaalayaasha Elman waxaan soo tiigsanay 8 ayaan soo baxnay quarter finalka ayaa maanay runtii waxaan ku rajaynahay ama ayeen ku faraxsanahay badiska aan badin hal eberka runtii waa ciyaar aad u xiiso badneed runtii aanano naga go'aanad in maanta aan gool aan gaar aan u hambaliyana ciyaartooyda kulli dhamaan kooxda Horseed runtii waxaan ku faraxsanahay quarter finalka aan soo baxay runtii sanadkan rajadeena 100% way sababtoo ah macallin walbo falsafad ayuu leeyahay macallinkan runtii wax badan ayuu kooxda ku bedelay runtii waan u hambaliyana isbedelka weyn oo keenay runtii waan ku faraxsanahay taageerayaasha ciyaartooyda waxaan leeyahay mar walbo Elman waxaad ugu barataan kala doontaa adulaan gaarsiin la'aantoodana ma socon karno duulay karaan kulankan waxaan dhaxaadiyay ka ahaa garsoore Xamsi Xaaji Cabdi عنايا كواد كلهم كانوا وحوا نور عبد محمد هلك عنايا لوات كلهم كانوا وها قرصوري سياد علي حسين قرصورها أفراد مس قرصورها كتك وها نجيب عويل وحان حر إلالية جود عيارتنا وها قرصور النور محمد عبد الله نور رزق وحان آد وقفر عسنا عيارتي دي كوحدي دي أمانتي كوبد دي هورسيد دي فيزيكال رنتين واحد لقى سو شقيه واي هذا أنا وقفر عسنا مارتي هناك شقة أدابت أسلوبت وقبتين مارتي محيد إن جوشان وحوين إنه إهد ويا ألمن تظهر إنك صون نقطة رجينا هدي لا يرى سنة صوص عضو هدي لا يرى اللي هذي أنا قاعد بيلي جرني سيد لوجا بقى جرني إنه لوجا بقى ربع هدي لا يرى جيم أضجوا كوحدنا كوح أرسد وكوحة وأضج هوريال ككمت هاي وانا يرتوي إنه وهم بلينا مارتي markii dambe garoonka kaambiyada dambe shaqadii aan qabta dhaay sidii wanaagsan ay u qabteen aad aan ugu faraxsanahay sanadka ka horeeyay waxay jireen Daoud waligeed iga guuleysatay taasna waxay ahayd martii daal badan oo kooxda dekedaha ku jiray aysan u qalmin inay sanadkaas jireen Daoud ka aysan qaadin haddana waa dareemi kartaa Horseed markii ugu horeysay iga badisay waxay ahayd sanadka hadda la soo dhaafay intaan dekeda wadana anaa ka guuleysan jiray marka guushan kooxda Elman ay gaartay aad ugu faraxsanahay waana wax weyn oo aniga moralkeygana iyo kooxda moralkeeda iyo maamul ahaan macallin ahaan moralka kooxdan oo aad ugu fiicnaanayo taageerayaasha ciyaartooyda waxaan leeyahay Elman waa soo noqotay Elmanteeda hore waay inaadnan ka seexan idinkana maartay dhinaciina aad taageero naga siisaan kooxaha Hegan iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Elman ayaa hadda tiigsaday aframaadka koobka General Daoud waxaana la sugayaa kooxihii soo raaci lahaa labadan koox